بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تليها قنت لدى إيران وحتى متقانا هذا كان هو دك مرة هذا كان هذا المهم بوطني مريكانك ماشي مريسو أي كتوسي صاب لنا كلا نتناهو وزيرك مالية وحتاجيهن أرنتان سنة مليونين معه وحن كلو كهدي دونا صواريخ هذا الصعودة يمشي مرايان أنسكو بلونا هالمر أرنتان أيضا نفتر كذا ودك حده ويان واسديد 10 دقيقة كهر تقريبا أنت سوي استاج هذا الوقت خضار أديك والله وتن يلوت دخل دخل ملها يسد جود هان ما إصل هذه عربتي ولا يري صنايع ودم ذي خليجك دارشوا وحاسعتها أما كدارشوا أما كل دارشوا وحاسعتها أنا عادي هاي تقريبا مدلة جوجو أفر ساعة برحدة وحلا ويري جرون كديارها إماراتك دبي أكتيس waxaa ku dhacay laba drone waliba qayb kamid ah iska dheh midna waa agtiisa ku dhacday midna qayb kamid ah ku dhacday droneskaasi ma loogu talagalay inay garoonka si toos ugu dhacaan mise agtiisa in lagu ridaa loogu talagalay lama yaqaan laakiin ujeedada waxay tahay in lagu khalkhal galiyo in uu dhaawac la gaarsiiyo in sumcadda laga dilo iyo wixii la midka ah laakiin waxa isweydiin leh ma Iiraan arinta sameysay ma ku daarashaa jirto oo lagu daalanayo ku darso arintaas shaki waxa keenaya حد أرنت العضي أو أنقله لواتن دخل ويان وحاس أدرك إنسان هرع كسعودة ودكدي عمان أي سلالة معناها دكدي عمان أي سدا وهو العيسى ولي بكيد كي شدا لك الدكدة ويان قرحاسي يهول عاسي سدا أدرك إنسان عمان إيران وفرق فرنتي عمان إيران وصاحبه عمان إيران ودد أنا معناها كلا شكين كلا هرين بل درات مركي ويرك أودعي إيران adiga hal gantaal ku tuurtay Cumaan waliba ay ku dhufatay saldhigii Mareykanka si farsamaysan Iiraan uga hadashay waxay tiri annaga Cumaan habay jaraatay uma socono saldhigaas bisan dhagsiinay laba xabay ahaayeen fila laba gantaal ahaayeen meeshan ku dhufanay intaasina ahaayeen ama taas oo kale yani laba gantaal fiican oo adiga hal mar ay macnaha haaf ku dumiyeen oo kale taas oo kale ahaayeen marka in drone hada la soo diro oo saldhigii Mareykanka aan la weerarin wixii ka haray ee la weeraro yani kaydkii shidaalka ee Cumaan ee madaniga ahaa دكدي عمان إن لو ويرره أرنتاس إيران ما كسرته ده أيوة إسرائيليين شكل بدل ما شاسي أيوة كذا شيء سيدا قدرت هذا عربتي وحن ليه كلام عنيقة ولا يري ريسنا يايو ولا وصل حلومنا يا بشار وانرسن مركز الوحيين سامك سنتر وحوالدين تقوت كل رجال وحبرشة أول وهاي فرصة وحبرشة أو كيما صار لقيبة أونلاين كأعيو كسو كردية واختيدان تنبأ إسلامك سنتر الوحيين وحقو بخانية دروس تا سيدة تفسير كقرآن كريم كواكات شريعة فقه يو حديث تا يو قصص الأنبياء سيدو كلا وحقو بخانية دروس تا قيبة حفظ القرآن كريم كأ يو مراجعة ديسا إيو أحكام التجويد كمتون تلحفظن إيو سيدو متن تحفة الأطفال ومتن الجزرية فرصتها وهايو مكاسكا آدي وبلاريهين وروح برشو سيارة له وحنا كودياسن معلمين تيلا iyo maamulba loogu dambeeyo kaabka waxbarashada aadka aad u qiimaysan waxa telefoonada iyo shaashada kala xiriir hada aflax quraan online waxaad ka baran kartaa quraanka kariimka adigoo adduunka halka doontid ka jooga da kasto aad tahay iyadoo ay ku bari doonaan macallimiin khibrad dheeraad ah u leh dhigista duruusta ay bixinayaan haddaba duruusta aanu bixino waxa kamid ah sida quraanka kariimka igaada qurxinta farta tajwiidka tafsiirka quraanka kariimka ahadiista iyo ducooyinka aaladaha lagu kulmi doono waxa kamid ah aalada casriga ee Zoom ama Google Meet waxaan bishan qaadanaynaa arday kooban fadlan ka faa'iideyso oo nala bilow safarkii aad ku baran lahayd barashada quraanka kariimka iyo asaaska diinta islaamka inta dheer nagala soo xidhiidh lambarka WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda ogowna hadalkii Ingiriiska wax badan oo ka shifay hatta Iiraan markay dhahdo Sacuudiga anaga ma weeran intay Sacuudiga wacdo ay Turkiga la hadasho ay Azerbaijan la hadasho ay dhahdo anaga ma ahan in badan hatta yaanihi معناها عدين ما يسن نقطين أو إيران ما أهن لما ديلهن مرة لو تهون وجري لها لكن إنجليز كانوا صوبود أو ده ويركي سلقي أنا الوسوق هذا أي سايبرس كويا لي إيران كما إيمان درونس كاسي ما أهن كي إيران وان خانا هاي وحكرني من مريكان كاجيس تمس إسرائيل جيستي وأنس عاش كلية الربعين اللي جاوا أما تعال وأنتاس وحلو بدنا أنا إسرائيل جيستي أو أجدد إتحي إن يصير رجريس صوت جيدو ناتو إنجليز يا محي إيو دجالك إيران أي سوق جلسوا إن عرب تجيدو سوق جيدو دجالك إيران أي جلسوا إن تركيا أي سوق جيدو أذربيجان أي سوق جيدو المهم واحد إسكود يسي إن عد العد يسوق حيسان كرتو أو إسبهيسي أهان يعني إيران كله جوابات إن كله جوابات إلى أمريكا بعرفوا جلا ويسوق جيدتي ترامب وحلو جوليه هاي جيف حبايرات أميالو
xaalad xun waxa lagu tilmaamaya oo uu ku jiro inay tahay mid aan sahlaneen bal aan soo marin xaalad noocaas oo kale Trump walwalka asaga dhan yani wuu careysan yahay fakar badan ka muuqda maxaa yeelay ogow maalin ka dambaysa shidaalkii cirka sii galaya caalamka dhaqaalihii adduunka sidan dawladihii asaga farti ku taagayaan saaxiibadiisa waxay leeyihiin neeho say u jiraan ilaan baxla la geliyay say baxar gelisay meel uga baxay uga bax malaha nacam lama bicidsanayo oo ma foga oo wax weyn looma arki doono haddii Trump uu soo istaago xaba joojina ku dhawaaqna annaga diyaar aan nahay bes weeyaan ma rabno kuma jirin hadduu dhaho sababtaas Israa'iil haday maxaa ka soo yeeray maadaama Trump laga yaabo xilli walba inuu nooga baxo dagaalkan annagana diyaar waxaan u nahay inaan Iran ku boobsiino yani saas oo kale almuhim carabti wala yareysana halkaas nooga baxaya waxa la arkayaa sawaaruq ama sawaariikh dheh oo samada ramala korkeeda maraya oo ku sii socda dhinaca Israa'iil hadda arkaysaan halkaas yani waa mid kale oo asana sii fogaaday macnaha sidaas oo kale marka almuhim Israa'iil maadaama la yiri waa idinku badanayna bahasha xaalad saasi ku socota dhinaca kale aanu imaano dekada ama dekadii aan afwan marinka Hormuz iyo qaabka miinooyinka Iran waa kaasa Iran miinooyinkeeda oo sidaa waxa la leeyahay faranqayaasha leeyihiin Iran uma baahna haba yaraatee maraakiib iyo dooman iyo ciidan iyo dhowr miinay ku soo daadinaysa billahi tawfiiq hadda marka Mareykanka diyaaradihiisa macnaha waxay ku jiraan inay ugaarsadaan sida la leeyahay miinooyinka laakiin intay arki karaan way koobihi marka la fiiriyo miinooyinka qaar ee Iran ay isticmaalayso kuwa hoos u dhaca oo kala tusaalahan oo meel fogna laga hagaayo marka almuhim marinkiina halkaas oo maraya wargelin muhiima ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaga soo cumreeyo bisha barakaysan ee Ramadaan cumrada bisha barakaysan ee Ramadaan waxay u dhigantaa xaj lala xajiyay nabiyullaahi Muhammad nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee waxaana fursadan kaaga faa'iideynaya shirkadda At-Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran inta lagu guda jiro acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin intaa dheer nagala soo xiriir cinwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda aanu imaado Netanyahu iyo wasiirkiisa maaliyadda waxay leeyihiin horta dagaalka Iran inuu sidan costly u noqonayo kuma aanan xisaabtamin waan ogeyn in uu mar walba dagaal la socdo yani dhaqaale badan laakiin waxay dhaheen macnaha waxa ay isticmaashay hadda Iran ee bahaladan ishay cluster bombska ayaa waxay sameeyeen meelo badan tusaale ahaan مثلا 10 kilomitir taqriiban ayaa bambooyinka qaarkood ay gaaraan marka inta ku dhacaan marka 10 kilomitir oo inta ah marka uu halkan ilaa 10 kilomitir macnaha uu saab bambooyin ugu dhacaan waad garan kartaa inta guri inta gawaari inta jidad inta hanti ay saameyn karto iyo xataa inta dad ay saameyn karto sidaa dadkeeda waxa ay isku raaceen wada hadalkii wada hadleen Netanyahu iyo wasiirkiisa maaliyadda ee Smotrich in laazim ay tahay in la sameeyo wartime budget macnaha budgetkii xilliga dagaalka in la sameeyo way isku raaceen inay laazim tahay loona baahan yahay bilyano shekelska Israa'iil ah waxayna dhaheen arinta haddii sidan ku sii socoto waxa laazim ah waliba sida uu dhaqsiyaha badan in arintaasi loo soo bandhigo marka hadda waxa wasiirka maaliyadda loo diray in uu soo dedejiyo maal macnaha ma lacagta maalka loo baahan yahay inta ila eg tahay iyo qiyaas ahaan kada wixii la midka ah nacam ma la baasin doona dabcan maxay xukuumadda dhisan Israa'iil uga waa xukuumad dagaal marka wax walba oo dagaalka ku baxaya diyaar u tahay inay baasiso okay ugu dambeyn hadalkii qosolka lahaa aanu imaano ninka taliyaha ama qaabilsan ilaalada kacaanka dhinaca isawaariikhda iyo fadaaga u qaabilsan wuxuu taagan yahay Trump hadda run sheegayso noo soo bandhig oo ha arkaan ummadda caalamka tus saldhigyadaada before iyo after waa kaasa saldhigyada Mareykanka saan u duqeynay annaga yaabanu taagan yahay macnaha sida aan u galnay eberan ka dhignay dukum daakum aan ka dhignay ee Mareykanka bootada intuu iska dhaafo meelaha uu ka soo hadlayo ka soo kheylinaayo xataa soo caalamka u soo bandhiga hadda waatana saldhigyadeena waa kuwana sidaan hadda yihiin shalayna sidaan ahaayeen so before iyo after marka aad soo dhigto hadda anaga waa idin rumaysanaa caalamka idin rumaysanaa laakiin inta ka horeyso yiri oo qarqarinaysaan hadda anaga waan ognahay waxaan idin geysanay waan ognahay habeeratee macnaha ana booto iyo intay ka dhacday ma aha ogow Iran sawaariikhda isticmaalayso ma ahan si cashwaai ah in badan arintaas ka hadalnay oo falanqayaasha ay ka hadleen yani sawaariikh meeshii loogu talagalay aaday waa yani kuwa ay Mareykanka isticmaalaan precision maxay ahayd precision guided missiles saas oo kale inay yihiin filaay macnaha waa yani misailo ama sawaariikh gantaalo loogu talagalay inta la soo tilmaamay
xaafadii iyo gurigii iyo dariishadii iyo qolkii iyo numberkii aadaya sidaa darteed uu ku faanayo leeyahay waxaan geysanay annaga waan ognahay maraykan way og yihiin israa'iil lafteeda way og tahay ee boota inta iska dhaafaan soo bandhiga haddii uu sheegayaan intaas aan ku soo khatimayo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh hadda aflax quraan online waxaad ka baran kartaa quraanka kariimka adigoo adduunka halka doontid ka jooga da kastoo aad tahay iyadoo ay ku bari doonaan macallimiin khibrad dheeraad ah u leh dhigista duruusta ay bixinayaan haddaba duruusta aanu bixino waxaa ka mid ah sida quraanka kariimka igaada qurxinta farta tajwiidka tafsiirka quraanka kariimka axaadiista iyo ducooyinka aaladaha lagu kulmi doono waxaa ka mid ah aaladda casriga ee Zoom ama Google Meet waxaan bishan qaadanaynaa arday kooban fadlan ka faa'iideyso oo nala bilow safarkii aad ku baran lahayd barashada quraanka kariimka iyo asaaska diinta islaamka intaa dheer nagala soo xidhiidh lambarka WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda بشار ونرسن مركز الوحيين سامك سنتر وحوالدين تأوت كل رجال وحبرشة أول وهاي فرصة وحبرشة أو كيما صار لقيبة أونلاين كأعيو كسو كردية واختيداني تنبأ إسلامك سنتر الوحيين وحقو بحنية دروس تا سيدة تفسير كقرآن كريم كواكبت شريعة فقه دا يو حديث تا يو قصص الأنبياء سيدو كذا وحقو بحنية دروس تا قيبت حفظ القرآن كريم كأ يو مراجعة ديسة إيو أحكام التجويد كمتون تلحفظن إيو سيدة متن تحفة الأطفال ومتن الجزرية فرصة وهايو مركزك آدي وبلاريهين وروح برشو سيارة له وحنا كود ياسن معلمين تيلا iyo maamulba loogu dambeeyo kaabka waxbarashada aadka u qiimsan wixii taleefana iyo shaashada kala xiriir wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaga soo cumreeyo bisha barakaysan ee Ramadaan cumrada bisha barakaysan ee Ramadaan waxay u dhigantaa xaj lala xajiyay nabiyullaahi Muhammad nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee waxaana fursadan kaaga faa'iideynaya shirkadda At-Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran inta lagu guda jiro acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin intaa dheer nagala soo xiriir cinwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda ma rabtaa inaad barato sida lacag xalaal ah looga sameeyo online ku soo biir dulmidi.com oo hel koorsooyin faahfaahsan oo kaa caawinaya inaad horumariso xirfadahaaga waxaan hadda u fududeynay dadkeena inay lacag ka sameeyaan internetka dulmidi.com waxay bilowday barnaamijka affiliate-ka halkaasoo aad ku kasban karto ilaa 30% commission adiga oo dadka kale u gudbinaya koorsooyinkeena ma jiro wax maalgelin ah kaliya iska diiwaangeli hel linkaaga gaarka ah si aad u bilowdo lacag samaynta ka mid noqo kuwa lacagta xalaasha ah ka sameeya internetka haddii aad u baahan tahay caawinaad nala soo xiriir lambarka ka muuqda shaashada qoraal ahaan ama cod ahaan hana soo wicin booqo dulmidi.com oo bilow lacag samaynta maanta